mahadsantahay adiga iyo telefishinka qaranka Soomaaliyeed iyo idaacadda raadiyo Muqdisho hawsha ballaaran ee qaranka Soomaaliyeed aad u haysaan. ugu horreyn waxaad ka warantaa bal kulankan iyo ahmiyadda gaarka ah uu leeyahay iyo waxyaabaha looga hadlay. Kulankan horta noociisa oo kale waa markii ugu horeysay oo ay dawladda Soomaaliyeed ka soo qayb gasho. Waa kulan ay isugu imaan jireen wadamada afka Faransiiska ku hadla caalamka xeeralyaashooda guud isla markaasna ay uga hadli jireen hadba mashaakilaadka iyo waxyaabaha markaa u baahan inay la xalliyo. nasiib wanaag sanadkan waxaa ka qayb galaya dhammaan wadamada geeska Afrika oo lagu martiqaaday oo ay Soomaaliya ka mid tahay, Ethiopia, Kenya, Tanzania iyo wadamada Indian Ocean-ka oo dhan ka soo qayb galeen. runtiina waxay noo ahayd annaga nafsadeennu sharaf iyo runtii inaan ka soo qayb galno mudnaan iyo privilege. waxyaabaha sida gaarka kulankan la iskula soo qaaday maxaa ka mid horta kulanka ujeedadiisu waxa weeye waa laba qodob. waxaan la yiraahdo waxaa looga hadlayaa argagixisada iyo sidii loo maxkamadayn lahaa oo sharciga loo waafajin lahaa. marka argagixiso laga hadlaayana marka dhinacyo badan ayaa laga eegayaa maxaa sababaya waa laga eegayaa dhaqaalaha si ay ku helaan waa laga eegayaa sidee sharciyada dalalka hadba sideeba sharciyada wadamadu ay u kala habeeyeen waa laga eegayaa. marka dood badan oo ballaaran way runtii wadan walba wuxuu soo bandhigayaa khibradihiisa iyo waxyaabaha uu arko inay laga maarmaanka tahay iyo tallaabooyinka ay ka qaadeen xagga sharciga, xagga garsoorka, xagga la dagaalanka militariga, xagga la dagaalanka dhaqaalahooda meelaha uu ka soo galo. waxaasoo dhan ayuu koobayay aad looga hadlayay. waa gartay kulankani dawladda Soomaaliya ahmiyad gaar ah ahmiyad intee leeg buu leeyahay dawladda Soomaaliya. argagixisada haddii la sheego runtii ahmiyadda ay Soomaaliya u leedahay waa garan karnaa. wadamada ugu dhibaatada badan ay ka soo gaartay adduunka caalamka argagixisada ayay Soomaaliya ka tahay ama laba ka tahay waxay doontaba. marka ahmiyad gaar ah ayuu Soomaaliya u leeyahay maxaa yeelay waxaad arkaysaa in dooda xooggeeda oo dhan ama boqolkiiba 60 ama 70 doodu ay ku saabsan tahayba qaabka argagixisada ee Soomaaliya uu uga jiro iyo qaabka ay Soomaalidu ula dagaalantay iyo qaabka dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ba ay uga hortageen iyo dhibaatada ay argagixisadu ay ku haysaba labadaba waa aad iyo aad u muhiim noogu yahay. wuxuu kaloo muhiim noogu yahay inaan caalamka ama dawladaha dariska iyo kuwa caalamkaba gaarto fariintayada iyo aragtidayada. dad badanoo waxaa jira xogta aan dhiibayno aan weligood maqlin ama wadamadooda aan ka arkin ayaa jira. marka bacdama ay taasi jirto waxay marka u baahan waxaa ka soo baxaya dawladda Soomaaliyeed in ay noqoto number 1 muxuu ahaa wadamada ugu horeeya argagixisada isla markaana number 1 haddana ay noqoto in wadamada ugu badan laga caawiyo sidii loola dagaalami lahaa argagixisada. maxaa lagu xusho Soomaaliya. Soomaaliya waxyaabaha laga xusay waxaa ka mid ahaa runtii dhacdadii ayaantii bishii Oktoobar labadii dhacdo dhashay khaas ahaan dhacdadii 14 Oktoobar oo runtii xanuun badan ummadda Soomaaliyeedna ku reebtay caalamka oo dhanna ku reebtay sawir aad u foolxuna ka bixisay argagixisada iyo waxa ay ujeedkoodu tahayba halka sawir cad looga qaatay. waxay Soomaaliya ay u soo bandhigtay arrimo badan oo runtii horumarka ay ka gaartay xarga argagixisada iyo qaabka ay ula dagaalantay iyada oo weliba marxalad adag duruufo adag oo khaas ahaaneed ay haystaan oo ah in hay-adihii dawliga ahaa oo la dagaalami lahaa argagixisadana la dhisayo oo dhismo ay ku socdaan lalana dagaalamayo isla markaasba. adduunku way adag tahay way qaadan waayeen sida aan labada isugu wadno oo ah dagaalkii argagixisada inaan wadno dhinac military ha noqdo, dhinac muxuu ahaa ii sheeg dhaqaale ha noqdo, dhinac sharciyad ha noqdo, dhinac maxkamadeed ha noqdo, dhinac muxuu abaabul ha noqdo isla markaasna inaan haddana dhisayno hay-adihii shaqada qaban lahaa oo ay ku jiraan burbur ay ka soo kabanayaan oo dhismahoodii uu socdo. marka runtii Soomaaliya waxay u ahayd arrintan arrin ay ku soo bandhigtay maaragtay reality-ga runta ah oo Soomaaliya ka jira caalamkuna uu ku soo jeedinaysa indhaha khaas ahaan wadamada francophone la yiraahdo
ku hadla afka Faransiiska caalamka geesihiisa oo dhan ka kala yimid. Waxaa yimid xeraaliyaha Quebec oo waxaa yimid xeraaliyaha guud ee Faransa. Waxaa dad badan caalamka West Africa laga wada yimid, Indian Ocean wadamada ah oo dhan baa laga yimid. marka runtii waxay Soomaaliya u ahayd wax ay ku bandhigto meel ay ku bandhigto dhibaatada argagixisada iyo sidii ula dagaalantay, isla markaana ay kaga hesho caalamka caawimaad iyo support dhinac walba leh. waa gartay Soomaaliya iminka waxay ku jirtaa dadaal adag oo ugu jirto sidii argagixisada meesha looga saari lahaa tan iyo wixii ka dambeeyay dib u soo kabashadii Soomaaliya. ma jira ilaa imka xeer argagixisada la dagaalankeeda oo dawladda Soomaaliya ay leedahay hadduu jirase maxaa hortaagan ilaa iminka in la ansixiyo? runtii ma jiro weli sharciga la dagaalanka argagixisada weli Soomaaliya kama dhaqan gelin. waxaa nasiib wanaag ah in muddaba inuu diyaar ahaa, golihii wasiiradana ay gudbiyeen, isla markaasna hadda uu horyaallo golaha shacabka qaranka. sidaa darteed waxaan rajaynaynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan ay goluhu ay u arkaan muhiimadda uu sharcigaasi leeyahay, isla markaasna ay ansixiyaan. ma oran karo aniga hadda caqabadaha hortaagan ama caqabada noocaas ama caqabada noocaas ah. way dhici kartaa in meelaha qaar xildhibaanadu ama mujtamacuba ay meelaha qaar ay ka muujinayaan taxafud iyo concern. maaragtay waxaa la rabaa in la isku muxuu tawaasuno ama la isku balance gareeyo xuquuqda aasaasiga ah muxuu ahaa ii sheeg muwaadinka iyo xataa qofkan terroristiga ah xuquuqdiisa aasaasiga ah oo inuu helo sharciga iyo dastuurka ku dhaqankiisa ah, iyo lana dagaalamo ayagii oo hay-adaha sharci fuliyaashuna ay helaan awood ay kuna baari karaan tallaabooyinka ugu habboon oo degdeg ahna ay ka qaadi karaan. marka labadaa isku miisaamidoodu runtii waa arrin adag waaye, waa arrin u baahan in dood badan laga yeesho, waa arrin u baahan in la xaliyo maaragtay. laakiin waxaa common ah oo ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto, hadday noqoto xildhibaanadooda baarlamaanka sharci dejiyaalka, hadday noqoto culummada iyo hadday noqoto shacabka, hadday xukuumadda noqotoba, waxa ay isla waafaqsan yihiin inuu sharcigani uu yahay sharci aas u ah la dagaalanka argagixisada. sidaa darteed waxaan rajaynaynaa in aanu waqti badan qaadanin ansixintiisa, si ay at least hay-adaha ku shaqada leh la dagaalanka argagixisada iyo hay-adaha dambi baarista iyo hay-adaha la yiraahdo dhaqangelinta sharciga oo ugu horeeyaan booliska iyo nabad sugidda iyo xafiiska xeeraalintuba ay u helaan awood ay ku baari karaan kulana dagaalami karaan argagixisada, isla markaasna ku maxkamadayn karaan. marka sharcigaas ma oran karo hadda caqabadaas hortaagan, laakiin waxaan rajaynaynaa wixii jirayba in hadda laga soo gudbay una marayo waqtigii la ansixin lahaa. waa gartay dawladda Soomaaliya ilaa iminka maxaa ka hortaagan dagaaladii ay ku ballan qaaday in kooxaha argagixisada looga saari doono guud ahaan dalka iyo goobaha ka joogaan? taas jawaabteedu wax ka hortaagan male, wuuna socdaa dagaalka. sidaad ogtahay goobo badan baa intii madaxweynaha iyo dawladdu mudday ku jireen dagaalkan. xukuumaddii horaa ku jirtay, xukuumaddaanna way ku jirtaa, si official ugu jirtaa, wax qarsoon ma aha. maalin walbana ciidamada qaranku dagaal bay kula jiraan noocyo badan leh. gobollada qaarkood oo dhan ay kula dagaalamayaan, goobo badan oo gobolka Shabeellada Hoose ah, gobolka Baay iyo Bakool ah, gobolka Shabeellada Dhexe ah, gobolka Hiiraan ah, gobolka Galguduud ah, kulli waa xataa dhinaca gobollada bariga Puntland oo kale. waad ogtahay dagaalada isdaba joogga ah ee lagu hayo kooxda booraleyda ku dhuumaalaysanaysa. marka dagaalku wuu socdaa, wax ka hortaagan male, wuuna socdaa. waxaa laga yaabaa inaanay dadku aynan arkaynin xabadii oo la isku ridaayay, laakiin dagaalku wuu socdaa baan leeyahay. waa gartay ugu dambeyntii xeebaha Soomaaliya waxaa jooga ciidamo aad u fara badan oo xisaabtooda la garanayn, hubka ay sitaan la garanayn iyo maraakiibta ay sitaan noocyadooda, inay xitaa dadka qaarkood waxay sheegaan ay ku jiraan kuwa kalluumaysiga dushana kuwa ciidanka ah hoostana kalluumaysiga ah. arrintaas ilaa iminka maxaa dawladda Soomaaliya ku qorshaysan? horta wax badan waxaa weeye waa laga badbadiyaa runtii, laakiin waxaa jira ciidamo muxuu ahaa Security Councilku uu awood siiyey la dagaalanka burcadbadeedka la yiraahdo, kuwaas oo ka kooban ciidamada NATO, ciidamo Yurub ah iyo ciidamo kaleba iyo wadamo khaas ahba.
runtiina shaqo aad u badan oo mandatekii la siiyey la dagaalanka argixisada ahaa ee la dagaalanka burcadbadeedka ahaa tallaabooyin aad iyo aad muhiim u ah ka geystay baa jira. ma dhahayo aniga marnaba waayo cilaaqaad weyn iyo wada shaqayn joogto ah iyo ayaan la leenahay ciidamadaas iyo xiriir badan. iyaga ayaa involved ku ah ama ku jira qaarkood kalluumaysi sharci darro ah ama inay khayraadka iyaga si sharci darro ula baxaan anigu ma aaminsani. laakiin waxaa jira kalluumaysato aan ciidamada ka tirsanayn oo wadamo khaasa ka socda oo runtii ku soo xadgudba badaha Soomaaliya khaas ahaan wixii loo gaaro aaga dhaqaalaha ee Soomaaliya way jiraan oo aad iyo aad bay waliba inkastoo ay hadda yaraadeen haddana waa wax jira oo facts ah oo aan la inkiri karin. laakiin ciidamada ma aha ciidamada u jooga ilaalinta burcadbadeedka ma aha. tan kale waxaa duwan awoodda ay leeyihiin ikhtisaaska ay leeyihiin ma aha inay la dagaalamaan kalluumaysiga sharci darrada ah. ikhtisaaska la siiyey ciidamadaas waxa waaye inay la dagaalamaan burcadbadeedka. marka wax walba oo related la ama xiriir la burcadbadeedka ayay la dagaalamaan. hadday noqoto waad ogtihiin maraakiib badan oo hub ah inay qabteen wax badan oo burcadbadeedkii waad ogtahay meesha uu maraayo skeelkiisa maanta siduu hoos ugu dhacay ama aan oran karnaba maba jiraba. marmar inay wax dhacaan waa laga yaabaa laakiin waa tallaabo aad u badan bay ka geysteen. laakiin awooddooda ma aha ciidamadaasi inay la dagaalamaan muxuu ahaa kalluumaysiga sharci darrada ah. taas waxaa iskale dowladda Soomaaliyeed ayada ayaa laga rabaa inay samayso tallaabooyinna dowladdu way ka qaadatay. waa tan la aasaasay guddiga la yiraahdo NMCC ama National Maritime Security Coordination Committee oo uu ku-xigeenka ra'iisul wasaaruhu madaxda u yahay. kuwaas waxaa loogu talagalay in ay maareeyaan dhammaan waxyaabaha not only ma aha oo keliya kalluumaysiga sharci darrada laakiin dhammaan wax alla wixii khuseeya muxuu ahaa ii sheegay arrimaha badaha mashaakilaadka badaha Soomaaliya oo ay ka mid tahay in la dhiso muxuu ahaa ii sheegay booliskii ilaalinta xeebaha ama coastal guard la oran jiray oo ay ka mid tahay in la tayeeyo ama la sameeyo muxuu ahaa ii sheeg sidoo kale la regulate gareeyo laysanka ama shatiyada la siinayo maraakiibta oo ay sharci shuruucdeedii iyo nidaamkeeda maraakiibta ka kalluumaysan karta. iyaga ayaa guddigaas ayay oo ra'iisul wasaare ku-xigeenku mas'uul ka yahay ayaa madax waa iyo wasaaradii kalluumaysiga oo runtii ayadana ayaamahan aad iyo aad runtii shaqo badan arrintaa ka qabata. marka waxaan aaminsanahay labadii sano oo lasoo dhaafay in ayada naftirkeeda kalluumaysiga sharci darrada iyo dembiyada kale oo lagu galo maritime crimeska la yiraahdo ee lagu galo badaha sida muxuu ahaa drug trafficking oo kale ama lagu galo muxuu ahaa waxaan la yiraahdo qashinka iyo chemicalka lagu daadiyo badaha oo kale environmentiga in la dhibaateeyo badda oo kale waa dembi. human trafficking lagu sameeyo waa dembi. drug trafficking baa lagu sameeyaa oo mararka qaar dadka drug dealerska ayaa mara oo ka faa'iideysta. waxaasoo dhan waxaa regulation iyo loogu talagalay inay nidaamiyaan guddigaas oo uu ra'iisul wasaare ku-xigeenku madax ka yahay. dhammaan wasaaradaha ay khusayso oo dhanna ay ka yihiin member oo ay ugu horeyso wasaaradda amniga, wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda cadaaladda, wasaaradda kalluumaysiga, wasaaradda arrimaha dibadda, xafiiska xiraalintu waa ka mid muxuu ahaa ii sheegay xabsiyadu hay-ad kasta booliska ka mid hay-ad kasta oo involved ku noqon karta wasaaradda waxaa ka mid ah dekadaha iyo maraakiibta la yiraahdo hay-ad kasta oo bad ku shaqo leh wax ama dembi ku shaqo leh oo dhan baa xubno ka. marka runtii taasna waxaan rajaynaynaa waxna way soo qabsoomeen wax harayna in waqti dhow gudahood wax badan xalismaan baan rajaynaynaa. aad iyo aad buu mahadsan yahay xeryaalaha guud ee jamhuuriyadda Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo jamhuuriyadda Jabuuti gaar ahaan hosteelka Kaambiska ugu warramaya telefishinka qaranka Soomaaliya.